بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلامي ولا له الصومالية ملول بقى جوكتان سلام قليل ودوما سلام كدب. الحمد لله الله بما هذا النسوباتي نيتا كدب وحرب إن شاء الله ما أنت إنا نفط هيدا إيا نفتينا وكبر رجيو موضوع magaciisu yahay kayfa akuuna cabdan shakuura, sidee u noqdaa adoon ilaahay nicmada uu korkiisa ku galadaystay oo korkiisa uu ku shubay oo uu ku arsaaqay adoon ilaahay uga shukriya, sidee u noqdaa ama adoon ilaahay uga shukriysa. haddaan mawduucana sii guda galno, qodobka koowaad wuxuu noqon karaa al-i'tiraafu bianna nicma hiya min fadli illaahi, in aad qirto oo garato oo aad mar walba qalbigaaga iyo maskaxdaada ku celceliso nicmadani inay tahay fadli iyo deeq xagga ilaahay ka timid ah, wa karamihi iyo ilaahay takriim iyo sharaf uu kuu sameynayo. markaad ogaato nicmadani inay tahay fadli iyo deeq iyo dheeraad xagga rabbi ka timid, waxaa kuu fududaanaysa oo easy kuu noqonaysa in aad allah rabbi subxaanahu wa tacaala aad ugu shukrido si uu kugu ziyaadiyo. waayo ilaah rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid. addoommahaygiiyo nicmada iyo waxa aan korkiina ku shubay haddaad iiga shukridaan waan idiin ziyaadinayaa mar walba. qodobka labaad wuxuu yahay al-ikthaaru min cibaadaati waalcamali الصaalix shukran وحمدا لله تعالى على ما أنعم وأكرم. in aad badiso adoon yahay in aan mar walba badino cibaadada ilaahay rabbi subxaana wa tacaala uu inaga doonayo iyo camal walba oo wanaagsan, inagoo aan intaa u sameynano shukran waxamdan, inaan allah rabbi subxaana wa tacaala nicmada uu korkeena inoogu galadaystay inaan ugu shukrino. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala nicmada uu korkeena ku galadaystay oo uu inagu sharfay inaan allah uga shukrino inagoo cibaadada badeynana. qodobka saddexaad wuxuu noqon karaa kathratu ducaa lillahi tacaala, inaad badiso ducada allah rabbi subxaana wa tacaala mar walba aada baryayso. oo maxaad allah ka baryaysaa? waxaad ka baryaysaa bian yuciinahu calaa shukrihi, inuu kuu fududeeyo oo kuugu kaalmeeyo inaad allah rabbi subxaana wa tacaala mar walba keliga u shukrido. sidoo kale inaad ilaahay ka barido wa calaa qiyaami bilcibaadaat bitaacaat, inaad u istaagto taacada ilaahay rabbi subxaana wa tacaala, inuu ilaahay kuu fududeeyana inaad mar walba allah rabbi subxaana wa tacaala ka barido. qodobka afraad wuxuu noqon karaa bayaanu athara nicma cala alcabdi وتحدث بها فيظهر أثرها في مأكله ومشربه وملبسه. أدونك إني كم موقتو عبادة إلهي عفوا أدونك إني كم موقتو نعمة إلهي رب سبحانه وتعالى وكوغلا دايستي كوركيس إني كم موقتو يسوغون كبد بدينين. نعمة إلهي كسي وإن أدي كوركا كم موقتو ووليبا قارهان أي كم موقتو waxaad xiranayso, waxaad cabayso iyo waxaad cunayso inay ka muuqato. sidoo kale waa inay ka muuqato gurigaaga, waa inay ka muuqato awlaadaada, waa inay ka muuqato ninkaaga ama xaaskaaga ay ka muuqato. markaas waxaa imaanaysa markaas intaa markaad nicmada ilaahay rabbi subxaana wa tacaala aada iska muujiso, aada mar walbana nicmada ilaahay rabbi subxaana wa tacaala sheegto adoon ka badbadinaynin kana gaabinaynin. waxaa la inoo diidan yahay waa waxaan la yidhaahdo inaan israaf sameyno, wixii ku xadgudubno oo nicmada ilaahay rabbi subxaana wa tacaala markii ilaahay nicmayna siiyey aan idhaahno ilaahay nicmuna siiyey oo inagoo waxyaala ka fudud awoodno wax aanan awoodi karin korka iska saarna, ama taqsiir sameyno oo wixii nicmadii ilaahay rabbi subxaana wa tacaala aanan muujino aan ka dhigno wax inagu yaroo kale aan ka dhigno. marka ilaahay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu mar walba jecel yahay adoonka. nebigu wuxuu yidhi in allaha jamaalun yuxibu ljamaal, ilaahay wuu qurux badan yahay wuxuuna jecel yahay wax walba oo qurux badan. markaan saa ku leeyahay ma aha inaan leeyahay
israaf samee oo wax walboo qurux badan oo aad aragto soo qaado maahan, laakiin inta aad uga baahan tahay oo kugu filan soo qaado, aan ka badbadisna lahayn. marka qodobkan afraad wuxuu yahay in nicmada ilaahay korkaaga uu ku galladaystay ay korkaaga ka muuqato, hadalkaaga ka muuqato, araggaaga iyo wejigaaga ka muuqato, ilmahaaga iyo gurigaaga iyo wax walba oo aad yacni gacanta ku hayso ay ka muuqato baa la rabaa, adoo ilaahay rab subxaana watacaala mar walbana uga shukrinaya oo aan shukriga ilaah weynin. sidoo kale qodobka shanaad wuxuu noqon karaa sujuudu shukri lilaahi tacaala, in qofku ilaahay rab subxaana watacaala sujuudu shukri u sameeyo marka ilaahay rab subxaana watacaala hawl culus uu ilaahay u fududeeyo, ama wax uu jecel yahay ilaahay siiyo, ama wax uu ku farxayo ilaahay rab subxaana watacaala u fududeeyo, waa inuu qofku markiiba sujuudu shukri la dhaco oo ilaahay rab subxaana watacaala ugu mahad celiyo nicmada uu ilaahay siiyey, ugana shukriyo. qodobka lixaad wuxuu noqon karaa addoonku inuu mar walba nicmada cusub oo ilaahay rab subxaana watacaala uu siiyey inuu ilaahay mar walba uga shukriyo, sidii uu rasuulkuba samayn jiray. kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu ahaa idaa jaa amrun, haddii arrin ku timaado, arrintaasoo uu yani yasuruhu uu ku farax geliyo uu ku farxaya rasuulku sal ly slam, kharan lilaahi saajidan, wuxuu dhici jiray sujuud uu ilaahay u sujuudayo, shaakiran lahu caza wajal, isagoo allah rab subxana watacaala ugu shukrinaya arrintan uu ku farxay oo allah rab subxana wataala ku arsaaqay. marka walaal waxaa lagaa rabaa adigana mar walbo ilaahay rab subxaana watacaala waxaad jeceshahay uu kugu arsaaqo, ama wax aad ku farxaysa uu kugu arsaaqo, ama wax aad rabto oo doonaysay uu ilaahay rab subxana watacaala meel dhow kaa siiyo, markaad shaygii gacanta ku dhigto waxaa lagaa rabaa inaad sujuuddo. laakiin ma ahan inaad sidii yani ninkii xadiidkii dheeraa oo riyaad saalixiinkii ku yaalay, ninba waxaa jiray safar uu ahaa, marka xoolihii wuxuu gaadiidka u watay oo safarkii ku watay oo cuntadii biyihii u saarnaaba kala waa xadiid mashhuur oo la wada yaqaano. kadib wuu helay, markuu helay buu intuu xariggii hogaanka qabtay buu waxaa la yidhi akhطأ min shiddati alfarax, farxaddii intay aada uga badatay buu yani gafay oo wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk, ilaahu adigu addoonkaygaa tahay anaa rabbigaa baan ahay. laakiin markii dambe wuu saxay oo hadalkii u arkay. يعني waxaan ka wadaa marka nicmadan marka ilaahay rab subxaana watacaala uu ku siiyo يعني ha caasinin oo nicmadii meel xun hala aadin, ilaahay rab subxaana watacaalana ha ku caasinin. ilaahay nicmadan isagaa ku siiyey, isagaa ilaahay rab subxaana watacaala nicmadan kuugu deeqay, meel walba uu raali ka yahayna ku bixi. qodobka ugu dambeeya waxay tahay oo aan kusoo kabana mawduuceena, alxamdu cinda nadarati lima huwa mariid ومبتلى ولا يقدر على خدم نفسه. runtii waa qodob aada u xanuun badan. wuxuu yahay markaad aragto qof xanuunsan oo sariir saaran, adigana aada caafimaad qabto, aada soconayso, aada ordayso, wax walba qabsanayso, qofkana laga yaabee saxarada iyo kaadida in sariirtaa korkooda looga qaado, markaad aragto ilaahay rab subxaana watacaala si يعني خالصا قلبك iyo niyadaada runka ah ilaahay ugu mahadnaq cali, waxaad tirahdaa alxamdulilah الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. دعاء أخرسو إلهي بمهد سكله، إلهي إجا عافية أدونكم يعني كو امتحاني سيدو كله ومبتلى قف إلهي امتحاني، يعني جركي سوى عافمات قبا لكن امتحان كلا هيستا ولا يقدر على نفس خدمته mana awoodo inuu naftiisa u kaalmeeyo. musqusha hadduu rabo inuu aado waa la geynaya, waana laga soo kilingareynaya, laga soo nadaafinaya, waa laga soo nadiifinaya. cunto hadduu rabo inuu cuno waa loo keenaya, afkaana loogu guraya. yacni ma awoodo, ama gacmuhu la-yahay, ama yacni maskixiin buu u xanuunsan yahay, ama luguhu la-yahay, ama qofka wax uunbaa ilaahay rab subxaana watacaala ku imtixaanay. marka qofkaasoo kalena markaad aragto waa inaad iyadana tiraahdo alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi, waxaa mahad iska leh allah iga caafiyey addoonka waxa uu ku imtixaanay. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله سو إيجا فضلي أضم بدن آدمه سكمدا. مركا ولال
allah rab subxaana watacaala nicmada uu korkeena inoogu galladaystay oo ilaahay korkeena ku shubay aan mar walba ugu shukrino si uu ilaah rab subxaana watacaala inoogu siyaadiyo allah rab subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu ilaahay inaga dhigo addoomaha allah rab subxaana watacaala mar walba ku shukriya addoomaha ilaahay shukrigiisa aan ilaawin ee ilaahay shukrigiisa mar walba carabkooda ku celceliya baan allah rab subxaana watacaala ka baryayaa wixii aan khalday naftayda iyo shaydaan bay ka ahaadeen allah rab subxaana watacaala iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin وسبحانك اللهم انت سنرى كسو قبل ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته